السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي قروحda badan kusoo dhawaada video cusub iyo basbuusta ay sugayseen gabdho badan abaayoon cusubina waay videoga ama videogiina ina keli doontaan rajeynaa si fudud u sameyn doonaa lagu macmacaan duulasho iyo basbuusta insha Allah casri ilmaha ugu sameyso martay markaas ku imaad emergency isla markaas insha Allah ugu soo tuuro waa wax yar oo fudud oo maasha Allah ilmahan u wanaagsan mar walba ilmaha muhiim ay ku tahay in casriyo ku helaan qaasatan ama duulasho ama fruities aad wax inuu ku helo cunugaada casriyadu waa ku muhiim ilmaha kula korinaysa asxaabta quruxda badan videoga ina ku caajisnaa rajeynaya like far badan asartaan ii share gareysaan asxaabteeda cusub soo dhawaada asxaabteeda u joogtana waa maasantihiin insha Allah videogan waa video simple oo macmacaan basbuuso haddaad hore u sameysan insha Allah way fududahay sameyso wax yar oo fudud waaye oo macaan badan insha Allah qaybta cayilka xataa ciyooba ilmaha ku caylayaan ama cayil hadaa jeceshahay insha Allah marka macmacaan yar oo fudud waa qaasatan waxaan si isticmaasho carabta marka waxaan ka diyaarsanay waa 2 xab ukun 3 ilaa 2 waa isticmaali kartaa waa ka badsan kartaa jooskada iskale laakiin aniga waxaan isticmaalaa 2 xab ukun iyo koob sokor intaas isku soo qasaya ama marka isku milmaan ukunta iyo sokorta insha Allah mar walba sokorta inay ku milanto isku day insha Allah si fiican u garaacdid ukunta marka isdhex galaan kadib yogurt ku dareena yogurt ka isticmaala waa yogurt baleen asigoo dhan ku dari doona insha Allah laakiin koobka waxaan u cabirayo ina aragtaan insha Allah marka ama koob waxa u isticmaali kartaa ama markaas adiga wixii ay haysatid afar qaan xitaa waa ka dhigan kartaa aniga marka asiga dhan wada isticmaalay koobkan ku soo shubay maadaama cabirka waxaan wada isticmaalayo koobkan oo gur walba yaalo isticmaali doona haddana waa koob saliid oo nadiif ah oo sunflower saliida dufanka lahayn waaye hadda saliida aad jecleen waxa ku bedelanaysaa subag insha Allah asxaabteeda quruxda badan marka hadda waxaan isku soo darnay waa koob sokor 2 xabo ukun iyo yogurt oo baleenka midka oo koob soo dhawo kale iyo koob oo saliid hadda waxa ku darsanaynaa hal koob oo qumbo shiidan waaye ama qumbaha darayga supermarket-da ka heli doonta insha Allah asigoo diyaarsan asxaabteeda quruxda badan waxa isticmaalayna waa somaliinada waxa waaye waa galey oo isla eg ama waxa waaye galey oo budo lahayn waaye asxaabtii quruxda badan magaceedu markii saas ay tahay magaca loo yaqaan magaceedu iga lumo insha Allah hadaa taqaanid waa galey adi nadiif wax budo oo lahayn oo isla eg oo jariir asxaabtii quruxda badan marka insha Allah midaas u baahan tahay somaliinadaas midaas waaye oo bacyo ku jirta ama gasacyo supermarket-da ka helaysaa galeydeena caadiga ma isticmaalin laakiin insha Allah haddaad saas u diyaarsatid waa isticmaali kartaa waxa kale ku daray qaandada yarta oo kafeega oo baking powder ku daray oo qaandada yarka oo baking powder buuxdan ku daray insha Allah intaas isku soo qaseena markay isku milanto kadib insha Allah waa arki doontaa asxaabteeda quruxda badan sida ku soo baxo insha Allah waa somaliina fudud oo macaan badan oo 5 minute oo waqti yar insha Allah kaaga bixi doonin ilmahaagana si qurux badan kugu cuni doona martidaada aad siisan kartid insha Allah mar walba waxyaabaha macmacaanka ilmaha in laga badinaa fiican laakiin waa u muhiim insha Allah wuu kula korinayaa maadaama ukun qumbo insha Allah galey waxyaabo fara badan oo muhiim u ah ku jiro hadda marka saxankiya soo diyaarsanay saliida marinay maadaama aan isticmaalayno wet paper warqad marka si noogu qabsato saxanka waa ina saliid marisaa ama subag marka saliida mariyay kadibna insha Allah warqad inta u baahan tahay cabirkaada goosanaysaa kadibna insha Allah waa ku soo shuba doonaa marka insha Allah channelkan hadaa ku cusub tahay asxaabteeda soo dhawaada nutrition baby and protein mar walba waxa ka heli doontaa waxyaabo ciyaalka target ka saari doona Ramadan iyo mashquulkiisa alxamdulillah wuu dhamaaday jadwalina saxnaa ama routinadeena normalka ahaa oo maalin walba il caruurta loo qabanayo insha Allah inaan soo gudbiyo rajeynaya hadaan iga mashquulan cafwan asxaabteeda shaqooyin fara badan qabtaa marka mashquulkayga tuufaas waa ayaa la qaban insha Allah mar walba fursad helo wixii muhiim noo ah insha Allah waa soo gudbi doona hadda marka ku shubo foornada yaa shitay kor iyo hoos u shidaysaa markay foornada kululaato qaybta kor waa iska daminaya qaybta hoose geesaha markay ka soo gududato oo geesaha oo ka soo galo inay hoos ka bislaatay kadib qaybta kor u shida doona asxaabtii sida samee hadana waxa diyaarsanaynaa malabkii ama sokorti lagu isticmaalo kor aan ugu shuban lahaa waa glass buuxo oo biyo ah iyo bakeeri oo sokor ah iyo 4 xabba heel ah biyaha waa 2 glass ama 2 bakeeri glass da isticmaaleen waxa ka dhiga doontaa biyaha 2 bakeeri iyo 1 sokor insha Allah mar walba sokorta inay ka yartaa la rabaa oo biyaha ka badan yihiin waa malab sokorta markay noo diyaartay heelka isku milmaan waa noo diyaar insha Allah waa gadansan doonaa
intay kugu jirto foornada inaad sii karisid oo qabow ku noqdaa la rabaa. Sokor kuleel ha ku shubin. Hadda waxaa ku daraayo waa liin dhanaan. Liinta waxay ku siinaysaa tasti macaanka dhanna waa loo isticmaalaa mar walba insha Allah. Hadda dabka markuu kasoo baxay sidaan quruxda badan ku soo baxay insha Allah. Sokortii aan soo diyaarsanay asigoo kulul ku shubaynaa insha Allah. Kadibna qumbo, meesha aan qumbaha ka isticmaalay badanaa dadku waxay isticmaalaan loos oo almanka marka aniga maadaama looska saas ma jecleen in lagu daro qumbaha saaid u jecelnahay qumbaha isticmaalna. Meesha anaga ka isticmaalayno marka gelinaysaan looska insha Allah ku dareysaa hadii markaas looska isticmaalaysid. Marka anaga qumbaha ku soo sharaxanay waa iska sharaxaad. Qumbahana caraf iyo macaan iyo dhadhan qurux badan oo mar walba ku siinaya waana ku soo darnay. Asxaabtayda quruxda badan waa soft oo jileece oo qof walba oo cuni karo. Waa macaan oo fudud. Qaxwada xaraarka مشاهد حركة إن شاء الله كعبس شاه سكر لي أما قهوة معاها كو استعمال سداسة وجلع سنيها سداسة وكصوبح أصحابتي قروح بالبدء إن سميسة دون تنارجينا أنت سميستي إن شاء الله قيبتكم أنتي صوموجية سيدو هاي دين كيسة إن شاء الله كصور ما فيدباك عرورت كصوبحيان ونيك سجايا أصحابتي قروح من قبل بدء أبوينا إيج سجايا مرك إن شاء الله فيديو كان سميسة أصحابتي قروح بالبدء هذا نحاضر يرصدونا دول شفضت وقروح بدن الصفتي أسبوعية وصفنا أسمينيسي wax badan iyo qarash badan ka galeenin waxaan soo cabirtay bakeeri iyo half oo bur ah iyo laba qaando oo waranka laba qaando oo kastar oo warankada waa colors leedahay waa kastar insha Allah waranka maaha same waa weysiman laakiin waa kastar hada laba qaando oo kastar ah iyo bakeeri halfkiis oo soo dhow oo bur ah iyo hal qaando oo bakin intaas isku diyaarsaday kadib saxanka diyaarsanay mar walba doolshada sameynaysid meesha ku shubaysid mar walba inay ku diyaarsantahay si doolshada ay kaaga fariisanin isla markaasna foornada kulul inay gashitida fiican asxaabteeda quruxda badan marka insha Allah saxanka had diyaarsanayna kadibna doolshadena garaaca doonaa saxanka marka wal beebarka waxa u saaray inay iiga dhagin oo si qurux badan iigu soo baxday insha Allah mar walba haduu ku yaal isticmaal hadaad haysan meesha saliid kaligeed aan ka marnaa waxyar sokor waxa marinaysaa cafwan waxyar oo bur ah iyo waxyar saliid ama batar marinaysaa ma kaaga dhigi doonto insha Allah hadda bareeska ii shaqeeyla qaybta kora waaye uu ii shaqeelay oo jikada insha Allah dhulka degi doonaa bareeska la isticmaali doonaa maadaama bareeskan oo ii shaqeey waaye asxaabteeda quruxda badan hadda waa soo garaacina ukuntan mar walba hadda jacasha waa kala saari kartaa laakiin aniga hadda kala ma saarin markii cadaanka iyo jaalaha la kala saara si fiican insha Allah si fiican la u garaaci doonaa ilaa ay ka kacdo ukunta iyo sokorta isku milmaan sokorta ukunta isticmaalana waa 4 xabo iyo koob sokor asxaabteeda quruxda badan waa 4 ukun ah iyo koob sokor insha intaas isku soo qasi doona isku soo milmi doonto marka isku dhalaasho ay creamy noqoto kadib insha Allah saliida isticmaali doonaa ilaa bakeeri oo waxyar adiga bakeeri oo 3 loo dhig qayb kamid ah saliid fara badan kuma darin asxaabteeda quruxda badan bakeeriga qayb kamid ah bakeeriga markuu buuxo 3 marka loo dhigo qayb kamid ah oo saliid oo sunflower oo nadiifka oo dufanka lahayn ama subag waa isticmaali kartaa insha Allah ina aniga subag isticmaala jeclahay laakiin subag diyaar iima ahayn asxaabteeda quruxda badan sidaas u isticmaal aan badanaa doolshada waxa jeclaa inaan ku darsado subag waxaan ku soo daray 3 qaando oo caano adag ah ama caano booro aan soo qasay insha Allah ka badin biyo fara badan ha ku darin asxaabteeda marka soo qasay soo milmantay diyaar inoo tahay burka wax garaacid kaagan baano gacanta ku qasi doontaa insha Allah burkina waxa waaye kastarki labada qaando iyo bakeeri halfka oo burka iyo halka qaando oo baking powder waa qaandada kafeega oo saaid u buuxdo insha Allah qaandada weynta isticmaalaysan halfkeeda maadaama doolshada isticmaalayno bakeeri half ay tahay marka insha Allah asxaab waa soo qaseena markay soo qasno couscous iyo ka yeelan si tartiib u qasi ay kaaga fariisan doolshada hada xoog u qasta way ka fariisanaysaa asxaabtii quruxda foornadan ha ku shidnaato kuleel ha ku ahaato mar walba oo wax ay karinayso rooti oo kale ama doolsho kale foornada ina sii shidataa fiican ay ku shidan tahay ayadoo kulul aad gashatid insha Allah si qurux badan ay kugu soo bixi doontaa kalar ma sha Allah yeelo doontaa marka waa soo qasnay marka soo dhameynay insha Allah sidii noogu soo baxdo waa arki doonaa asxaabteeda quruxda badan waa macaan oo fudud waa casriyo ilma insha Allah laga dhiso mar walba cunugaad muhiim ay ku tahay waxyaabaha macaanka mar walba fruitiska ilmaha loo badiyo laakiin way u baahan yihiin mar walba ma aha in la siiyo marka saxanka aan soo diyaarsanaa ku shuba doonaa asaas inay u shubmaysa la rabaa isku daba dhacayso doolshada haday dhufaag tahay doolsho qurux badan ku noqonayso isbuunye oo ma sha Allah jilacsan oo ilmaha ay ka helayaan insha Allah
doonto doorshooyin fara badan oo ilmaha u fiican oo ilmaha cayilka si dhaqso leh insha Allah waa soo wadaa qaybta macmacaanka inaan iga dhiso waaye oo caruurta insha Allah waxyaabaha markaas oo muhiimka ah ilmaha oo dhibeyno oo dhibaato fara badan u keenayo sokorta fara badan ilmaha uma fiicno ama dufanka saa'idka ah laakiin in loo dhaxgeliyaa oo mar weekii 2 mar ama bishii 1 mar insha Allah u sameeyo cunugaada waa ku muhiim mar walbo inuu ku helo wax qurux badan oo isku dheelitiran kalarkaas waxna siiyana waa kastarka iyo konta markaan dab ka soo bixinaa sidaas qurux badan ugu soo baxday ayadoo kulul qaybta kore iska daminay markay noo bislaato qaybta hooste kore u shidanay 25 minute sugnay insha Allah asxaab sidaas qurux badan inoogu soo baxday dabkana 180 aan geysanay asxaabtay quruxda badan marka hadda waa jarjar doonaa sida inoogu soo baxda kor iyo hoos waa isla wada eg tahay waa doolsho qurux badan soo baroobay doolsho markastar lagu daro wax yar oo caraf badan oo macaan badan oo kunta daan cibta shiirkeed insha Allah kastar ku darso wax kale noqon doonta insha Allah waana ka heli doontaa asxaabteed quruxda badan videoga inaan ku caajisnaa rajeynaya oo simple ka ah oo caruurtan loo sameeyo qaasatan basbuusaha insha Allah hal soo baro wax yar oo fudud oo macaan badan waaye ilmaha ay ka heli doonaan oo familka dhammaan ay ka wada heli doontaan martada ku imaatada isla markaas u diyaarisa qaxwadiisa ama shaahiisa u raacsiiso waa xiro fudud markaan soo jarjaro sidaan quruxda badan ee ku soo baxday asxaabteeda oo suufka ah oo macaanta badan caanaha qandac ku siisa cunugaada insha Allah mar walbo cunug ma sha Allah ku noqon doona oo si fudud ku cayilo doolshada ilmaha saa'id u cayilisaa maadaama ukun ay ku jirto ilmaha si dhaqso maalin walba joogto day kugu helaan ma sha Allah tabarakallah waay laakiin habeenkii insha Allah siin cunugaada waxay keeni kartaa suus salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala